عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن دمان با خيارتا عودا naga daawatahay halkani waa telefishinka caalamiga Royal Studios magaalada Zurich ee wadanka Switzerland. Kusoo dhawaada daawadayaal codka jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland. Maantana waxaa marti igu ah stuudiyaha jaaliyad ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya. Waxaan doonaynaa maanta barnaamijkeena inaan ku falanqeyno aayaha gobolka Hiiraan iyo sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyay ee ka jiray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waa sidee siyaasadda gobolka Hiiraan, maxaa dan u ah gobolka Hiiraan. waxaanu maanta ku falanqeyn doonaa intaa iyo in ka badanba barnaamijkeena codka jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland oo ay marti igu yihiin daawadayaal saaxiibada ka soo jeeda badankooda gobolka Hiiraan. haddaba ugu horeyntii waxaan jeclahay daawadayaal inaanu sidaanu la soconno ilowgeedba waxaa ka jira gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xaalad kacsanaana oo ku aadan Allahu naxariistay dil la sheegay in loo geystay sargaal u shaqeeya hay'adda qaramada midoobay. haddaba waxaa ka dhashay dilkaasi sidaanu la soconnaa xaalad kacsanaana waxaana la soo sheegay barihii ugu dambeeyay in halkaasi ay xirteen qaybo ka mid ah magaalada maleeshiya la sheegay in ay ku heeb yihiin mas'uulka la dilay. mas'uuliyiintan ayaa maanta waxa ay doonayaan inay ka hadlaan intaa iyo in badan oo ka mid ah. sidoo kale aayaha gobolka Hiiraan waxaa jira sidaanu la soconno maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo la doonayay. waxaa diidan qaybo badan oo ka mid ah reer Hiiraan. waxaa sidoo kale halkaasi taabacsan qaybo badan oo ka mid ah reer Hiiraan. ugu horeyntii waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Cali Faarax. waxaan jeclahay inaan idin baro martidayda maanta Cabdirasaaq Cali Faarax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo sida aad aragtaan bandhinaca midig iga fadhiya. waxaa sidoo kale daawadayaal barnaamijkeena maanta marti igu ah Axmed Maxamed Tifow oo loo yaqaan Axmed Daahir oo garabka bidix iga fadhiya daawadayaal. sidoo kalena ah oday Soomaaliyeed oo wax badan u soo jooga isla markaana wax badan ka og xaaladda gobolka Hiiraan. barnaamijka waxaa sidoo kale marti igu ah daawadayaal Cawil Nuur Cumar oo ka mid ah xubnaha ugu sarreeya jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Zurich ee wadanka Switzerland. sidoo kalena ah gudoomiyaha jaaliyada ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee magaalada Zurich ee wadanka Switzerland. waa tahay daawadayaal barnaamijkeena ayaanu gudagaleynaa. waa tahay sidoo kale waxaa barnaamijka daawadayaal sidaad aragtaan marti igu ah Axmed Maxamed Cabdi oo asagu ka mid ah aqoon-yahaniinta reer Hiiraan isla markaana degan magaalada Zurich. sida inaan kusoo dhaweeyo telefishinka caalamiga Royal kusoo dhawaada TV-ga Royal. ugu horeyntii marka ugu horeyso waxaan jeclahay inaan ku bilowbo ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Cali Faarax, aqoonyahan Soomaaliyeed isla markaana taxliiliyo xaaladaha gobolada. kusoo dhaweeyo telefishinka caalamiga Royal. waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa sidee u aragtaa aayaha gobolka Hiiraan. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaa farxad iyo marka wareyso fursadan qaaliga ah ee aan kaga hadlaya ama ku cabirayno xaaladda guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan. waxaan marka hore salaamahayaa bahda saxaafadda telefishinka caalamiga ee Royal. runtii shaqo muhiima bulshada Soomaaliyeed u haya. waan ku faraxsanahay waan salaamayaa wariyaasha iyo maamulka meel kasta ay joogaan. haddii aan ka warramo xaaladda gobolka Hiiraan. runtii xaaladda gobolku marxalado kala duwan ayuu soo maray ilaa laga soo bilaabo 56 ilaa iyo 1969kii dowladdii rayidka ahayd markaa ilaa iyo kacaankii 22 October ilaa iyo 1990kii wixii ka dambeeyay marxaladihiisa bedelka ahaa maaragta dagaaladii ku saleysnaa. runtii anigu waxaan aaminsanahay oo aan qabaa oo rag badan oo saaxiibada ama taageerayaal badan oo reer Hiiraan ay la qabaan in gobolku ay meel xun xaaladiisu maanta ay marayso oo la dhihi karo 56 maanta uu ka liitaa xaaladdu haddii aan isbedel iman ama aanay maaragta dadka reer Hiiraan oo aanay qaadan go-aan cadna waxaan u jeedaa buu yidhi halkaa mugdi uu ka jiro oo gobolka Hiiraan uu ka mid noqon doono gobolada ka haray Soomaaliya oo sarreebkii ugu dambeeyay 2016. sidaa darteed anigoo ah aqoonyahan Soomaaliyeed khaasatan ka soo jeeda gobolka Hiiraan fikirka muddana waxay la qabaan rag badan oo aqoon-yahano ah. waxaan qabnaa anagu in aan lagu degdegin
degdegin arrinta hiiraan oo loo daayo ay ka talintooda dadka reer sidoo kale daawadayaal waxaa barnaamijkeena marti inoogu ah Axmed Maxamed Tifow sidaan idin sheegay waxa ka mid yahay odayaasha reer hiiraan ayaad ka mid tahay sida jirtana waxaa jirta xaalad kacsanaan oo ka jirta gobolka oo ay ugu dambeysay maamul la doonayay in laga yaglaalo hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana dad badan oo reer hiiraan qabaan in arrinkaasi aysan dan ugu jirin gobolka hiiraan sida uu sheegay ugaad ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Cali Faaraxne waxa uu taagan yahay 56 way ka liidataa xaaladda gobolka hiiraan adigu maxaad ku beerinaysaa bismillahir rahmanir rahim waxaan u mahadnaqayaa telefishinka Royal iyo dhammaan madaxda saxaafadda salaaniya bogaadin kadib waxaa sharaf ii ah maanta inaan si dhab ah aan u cabiro ama aan u cabirno qof waliba waxa xaqa uu u leeyahay ka ra'yi ahaan taas markaan ka soo gudbo waxaan rabaa guud ahaan horta ra'yiga uu qabo Cabdirasaaq waa ra'yi aan qabo intaas waxaa ii dheer oo aan rabaa inaan maaragtay aan sii adkeeyo si dhabana aan u iftiimiyo gobolka hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada ugu magaca weyn leh jamhuuriyaddii la dhihi jiray Soomaaliya hadda wuxuu ka mid yahay gobollada ugu liita jamhuuriyaddii la dhihi jiray Soomaaliya waxa geeyay meesha waa reer hiiraan iyaga mas'uuliyadda iska leh ayaga iska leh waxqabadka gobolka inay baabi'iyaan iyo inay kor u qaadaan waxqabadka iyagay ka go'da markaan cabirayno faragelinta lagu hayo Soomaalidu waxay tiraahdaa lax waliba shilka isdhigtaa lagu qalaa horta reer hiiraan marka koobaad waxaa la degay ka gobol ahaan iyo ka shacab ahaan waxaa la degay waa mas'uuliyiinta ay doorteen oo la rabay inay iftiimiyaan wadada saxda oo gobolka iyo dadkiisa u wanaagsan waxaa noo muuqata annaga xaqiiqadu siday tahay wada qalada in hiiraan ay ku socoto haddaan wadada qaladka ahay maanta ku socoto hiiraan aan laga duwin oon hiiraan istiqlaal cagaheeda loogu taagin na waxaa imaan doontaan aragnaa arrin aad iyo aad u fool xun oo aan meel laga soo celin kara aan la tagaysa hiiraan waa tahay aad baad mahadsantahay waan ku soo noqonayaa ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Cabdi waxaad ka mid tahay jaaliyadda reer hiiraan Daqare wax badan u soo joogay sidoo kalena degan waddankan Switzerland waa aragtaa odayaashu waxa ay ka dhawaajiyeen hiiraan in xaaladeedu ay cakiran tahay meel xun ay taagan tahay adigu maxaad is leedahay fikirkaas miyaad la qabtaa mise fikir ka duwan aad qabtaa bismillahir rahmanir rahim horta fikirkaas fikir ka duwan aan la qabaa aan ka qabaa aniga sababtoo ah gobolkan waa gobol macnaha horta magac leh gobolada ugu caansan oo ugu magaca weyn ku jiro haddaba meesha waxaan aniga iiga muuqdo siday walaalihii ka dhawaajiyeen si ka duwan sababtoo ah waxaan dareemayaa oon u arkaa aniga in siyaasad hoose oo maaragtay oo kale ay jirto iyo gacan kale oo gobolka hoos u dhigiisa ka talinayso yaad ku tuhmaysaa waxaan ku tuhmayaa ragga dawladda sheeganaya dawladda ka soo jeedo ayaga qoqob ka wado ayaga gobolka waa gobol weyn oo gaar u istaagi karo haddii ay aayahooda ka tashtaan dadkana ku biiri karo xataa gobolka Shabeellaha Dhexe way isku biiri karaan laakiin waxaan xusuusanahay in shir uu socday dawladda markii ay soo magacaabaysay ragga arrimaha
maaragtay Ay ka talinta labada gobol ah ragga ay soo magacaabaysay ka hor gobolka waxaa ka socday dib u heshiisiin, waxaa ka socday ummadii reer hiiraan inay gacmaha isqabsadaan. dowladdu ma aysan ka sugin, waxay damacday in ay cashar u yeeriso, taasna qaladkeeda waxaa iskale dowladda. aniga run ahaantii horta shakhsiyan waxaan ku jiraa dadka macnaha midnimada Soomaaliya jecel oo aan macnaha u soo jeedin maxaa la dhahaa dowlad goboleedyadan iyo waxaan iyo kala qoqobkan ma jecleen aniga inay imaado. horta Soomaali inay gacmaha iswada qabsato oo ummadda Soomaaliyeed ay istaageeraan ayuu ahaa go-aankayga. waayo waxaa la yidhi nimaan weligiis arag midnimo Soomaaliyeed iyo macaankeeda maamul goboleed ayuu u arkaa shay munaasib ah. waata laakiin hadda asaga ayaa laga fursan waayo xal loo arkay Soomaaliya. maadaama xal loo arkay waxay ku habboonayd, maadaama gobolkan oo gobol weyn oo macnaha madax banaanidiisa heli kara xitaa uu yahay, in ayaga laga warsugo oo ummadda reer hiiraan ay aayahooda ka tashtaan. soo laaban doonaa taa qodobada ayay igu jirtaa. daqare aad baa u mahadsan tahay. weli waxaad nagala socotaan telefishinka caalamiga Royal Studios magaalada Zurich daawadayaal ee wadanka Switzerland. barnaamijkuna waa barnaamijka codka jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland oo ay marti igu yihiin jaaliyadda gobolka Hiiraan oo iyagu maanta doonaya inay cabiraan fikirkooda ku aadan aayaha gobolka Hiiraan oo bariyihii dambe ay ka jirtay xaalad kacsanaana. haddaba daawadayaal waxaa hore loo yaglaalay gobollo fara badan, maamul goboleedyo ay ka mid yihiin maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale uu u dambeeyay maamul goboleedka la yiraahdo Galmudug State of Somalia ka oo inta badan dowladda federaalka oo ay kala kulantay caqabado kala duwan, iyada oo sidoo kale hadda dowladda ay miiska u saaran tahay dhisidda maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. walow ay kasoo horjeesteen aqoon-yahan fara badan oo kasoo jeeda labada gobol, haddana ma cadda sida ay ku hirgelayso. bariyihii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxa ay magacowday guddi loo xil saaray aaya ka talinta gobolka Hiiraan oo sida la sheegay kasoo jeeda labada gobol. waxaa ka hadlay arrinkaasi odayaal dhaqameed kasoo jeeda labada gobol, waxa ayna gaashaanka ku dhufteen guddigaasi inuusan metelin islamarkaana uusan munaasab u ahayn. haddaba Cabdirasaaq Cali Faarax ayaan jeclahay inaan weydiiyo aniga oo usoo laaban doona arrinka uu ka hadlayay guddigaasi sida uu u arko dowladdu ay magacowday. bismillaahi raxmaani raxiim. runtii arrintaasi guddigaas la magacaabay oo guddi farsamo lagu sheegay oo labada maamulada loo dhisayo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, runtii waa wax aad loola yaabo. wax cid mas-uuliyad sheeganayso ama dowladnimo sheeganayso ay ku fikirta xitaa ma aha. taa waxay ku tusaysaa aqoon darrida ka haysata dowladda maanta Soomaaliya oo looga fadhiyo inay ummadan dhibka ay ka saarto. aqoon darrida ka haysata ee maamul ha noqoto ama ha noqoto gobolladii iyo degmooyinkii dalka ayay ku tusaysaa. waa dad aan awoodooduba dhaafsiisanayn filla Soomaaliya. waxa weeye waxa laga hadlayo waa federaalku macnihiisu waxa weeye in dadka meesha degan iyagu ay wada hadlaan, wixii ay ku heshiiyaan iyagu markaasi dowladdu wixii technical ama dhaqaale ah oo kulay ka saacad kulay international community dhaqaale bixiyo dowladda dhaqaale haysata. midda kale nidaamka dalka Soomaaliya waxaa dhismay anagu uma horeyn maamulo ayaa jira oo hore sida Puntland, sida Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug. maamuladaas iyaga waxooda samaystay oo dhistay. laakiin dowladdu faraha way kula jirtay Soomaaliya. waxa ay kula jirtay ma jirin, way isku dayday laakiin wax ay ka shaqeysay ma jirto. Puntland way ka horeysay horto. Jubbaland waa la soconaa wasiir iyo madaxweyne tagay oo laga soo celiyay airportkan aragna anaga sidii ay rabeen ayay wax u qorteen. dadka Hiiraan waxa haysto dowladda ayaa gacan ku dowladda ayaa arrintaasi u aragta intii maamuladii kale ee dhismay ay gacanteeda ay ka baxeen ayay ku soo baraarugtay sida ay Galmudug uga faa'iideysatay oo maarta saaxiibkooda damir jadid bal yiraahdo. laakiin anigu damir qadiim baan u aqaanaa fikir laga tagay bay wato lagu taageero wixii farda. marka guddigaas uma arko xitaa laguma salaynin deegaan ahaan dadka degan meesha laga keenay. waa arrin calaamad su'aal ee saaran tahay una baahan in laga daba tago
ciddii fikirkaa qabta waa cid aan diyaar u ahayn Soomaali in ay cageeda ku istaagto maanta. waa tahay laakiin wasaaradda arrimaha guduhu waxay sheegtay inay dhinacyo badan ka fiirisay muddo ay ku howlaneyd guddiguna uu ka kooban yahay labada gobol isla markaana ay isku dheeli tirtay maxaad taas uga jawaabaysaa? weligeedba arrintu dadka aanay arrinta quseyn ayay u raadsadaan meesha ay jirto halka uu jiro kaba raadiyaan. waxa weeye waxaad arkaysaa in la garab maray wadadii loo mari lahaa dadkii mudnaa in lagala tashto. waa tahay aad buu u mahadsan yahay cabdirasaaq. daawadayaal waxaanu rajaynaynaa inta barnaamijka uu inoo socdo inuu qadka taleefonka inagula soo biiro mid ka mid ah aqoon-yahanka Soomaaliyeed isla markaana kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo la yiraahdo Cabdulcasiis Axmed Cabdulle. haddaba injineer Cabdulcasiis Axmed Cabdulle oo isagu hore isugu soo taagay jagada guddoomiyenimo ee gobolka Hiiraan walow aysan u suurtagelin ayaa waxaanu rajaynaynaa inuu qadka taleefonka inagula soo biiro si uu fikirkiisa u cabiro isla markaana uu cabiro halka uu ka taagan yahay arrinta saaxiibadeena ay ka hadleen. daawadayaal barnaamijkeena ayaana weli bartanka kaga jirnaa. sidoo kale martida waxaa ka mid ah sidaan hore idii baray Cawil Nuur Cumar oo ka mid ah xubnaha ugu sarreeya jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan Zurich ee waddanka Switzerland isla markaana ah guddoomiyaha jaaliyadda gobolka Hiiraan ee gobolka Zurich. Cawil waxaan jeclahay daawadayaal inaad ila soo dhaweysaan. waxaan hordhigayaa su'aal ah isagu dhankiisa sida uu arkaa maamulkani la sheegay in loo dhisay Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. cabdirashiid aad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa fursaddan qaaligaana siisay. waxaan aad u salaamayaa bahda saxaafadda Royal TV iyo walaalahay barnaamijka ay la qayb qaadanaya. haddaan usoo noqdo su-aasha aad i weydiisay aniga fikir ahaan waxaan qabaa Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan in la isku daro. waa dad wada dhashay, waa dad isku daaq ah, waa dad ehel ah. in la isku daro fikir ahaan kaasaan qabaa. waxaan ku talinayaa insha allahu tacaala dadka labadaas gobol degan aayahooda inay iyaga ka tashtaan. dowladdana waxaan jeclahay insha allahu tacaala meesha ugu fiican aas-aaska inay ka bilaaban ee la tashi buuxa la sameeyaan dadka degan labadaas gobol. waa mahadsantahay. sideed u aragtaa adiga isku darka labada gobol? saaxiibkan Cawil waxa uu ka dhawaajiyay dadkan inay isku deegaan iyo isku daaq yihiin isla markaana aysan kala maarmin. adigu dhankaas sideed u aragtaa? fiiri waxaan rabaa inta ila joogtay inta i daawanaysaba inaan weydiiyo su-aal ah ma jiraa laba gobol oo qabaa'ilka laba qabiil ama saddex qabiil oo kala ah yani kala nooc ah la isku geeyo la isku daray ma jiraan? haddii la isku dari waayo sababaha la isugu dari waayo maxay tahay? sideedana marka la yiraahdo federal oo maxaa tahay? inaan anigu aayahayga kasoo tashado adiga aan kuu imaado aan wax wada yeeglen. anigu waxaan qabaa inaanay dan u ahayn Shabeelle iyo Hiiraan in la isku daro dan maba ahan batata. sababta aan u diidanahan waxa weeyaan kow waa in la fiiriyo adoo soo koobayo kow waa in la fiiriyo abni ahaan maxaa u dane labada shacab, nabadgelyo ahaan maxaa u dan ah. labo sababta ay isugu imaanayaan labadoodu maxay tahay? ma kala maarmaan mase ma kala maarmaan? laakiin adaa wato waxaa jiro system dowladda dhexe oo aan u ogolaaneyn hal gobol inuu keligii istaago isla markaana shuruuduhu ay ka mid tahay laba gobol iyo wixii ka badan. taas waad ilowda meesleeda. waxaa jira horta sideedaba marka la yiraahdo federal waxaa ku jira democracy ku jira qofka aayihiisa inuu ka taliya ku jira. Hiiraan waxay noqon kartaa laba gobol iyo wax ka badan. waxayna noqon kartaa gobol sidiisa u taagan oo noqda gobol hoostaga dowladda federaalka hoostaga noqon kartaa. hadday Shabeellada Dhexe u tagayaan iyagay ka go'da. ma ahan inaan leeyahay anigu dadka reer Hiiraan ra'yigooda iyo aragtidooda rabitaankooda ma jirto. ma ahan inaan leeyahay. waxaan ka hadlayaa afduubka gacantan xaaraanta ah ee lagula jiro. waxaad ula jeedaa dadka reer Hiiraan iyo gobolka gacantan xaaraanta ah ee lagula jiro
ma ahan mid keeni doontaan leeyahay nabad iyo wada noolaasho labada gobol iyo labada beelood beelaha hiiraan iyo shabeellada ka dhex ma keeni doonto waana wax dib looga shalaayi doono. gacanta xaaraanta maxaad ula jeedaa? waxaan ula jeedaa gacanta xaaraanta ah dowladda federaalku waxay ka adeegtay inay afduubto kuna dadaashay inay afduubto oo ay dhanka kale u gediso rabitaankii dadka halka ay jooji waa kusoo laabanayaa cabdirasaaq waad aragtaa saaxiibadeen cawil nuur cumar waxa uu sheegay in hiiraan iyo shabeellada dhexe isku baahan yihiin laba dad oo isku baahan oo deegaan iyo daris wadaagana ay yihiin. saaxiibkeen axmed matifowna gaashaanka ayuu ku dhuftay, adiga dhinacaaga marka war. bismillahi raxmaan raxiim. runtii horta gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe waa laba gobol oo daris ah, dadkuna dad walaala weye, labada dhinaca wada dega, dad hadda xumaan iyo wax ka dhexaysa ma aha. laakiin ujeedada waxa weeye dhabtaa meesha taalla, gacanta arrintan laga hadlayo dadka gacantooda kuma jirto. haddii laysu dayo iyagu wada hadlaan oo wax isla gaaraan waa wax wanaagsan. laakiin waxaan u arkaa anigu inaan arrintii iyagu aanba lagala tashay oo maaragtaa dad dana gaara ka wata maamulka dowladda maanta jirto doonaysa iyadu in ay mansabkii ummadda labada gobol ah oo la afduubo oo markaasi aan laga talagelin dadka waxgalka ah, khaasatan dad cabasho reer hiiraan haddii aan nahay inagu cabasho waxaan qabnaa ka duwan midaan ay gobolada kale ay qabaan. saad la socota hiiraan waa astaan u taagan qaranka Soomaaliyeed. gobolkan waa gobol fac weyn, waxaanu rabnaa anagu waxa weeye xuquuqdii aanu lahayn in aanu helno. sidoo kale waxaa jiray guddi dowladdu ay magacowday meelo badan oo Soomaaliya kamid ah, gaar ahaan labada gobol oo quseeya ay gaashaanka ku dhuftaan isla markaana ay aad u dhaliileen. adiga dhinacaaga guddigaas ka cawil ahaan maxaad is leedahay? bismillahi rahmaani rahiim. cabdirashiid aad u mahadsan tahay. su-aashaada waa su-aal muhiim ah, loona baahan yahay in bulsho ahaan la isweydiiyo qof kasta wuxuu ka qabo. waa sax, dowladda Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha Odawaa wuxuu ku dhawaaqay guddi farsamo oo ka kooban 14 xubnood. waxaa xaqiiq ah 14taas xubnood ku dhawaaqitaankeeda inay ka horeeyeen wada xaajood badan, wada tashi badan, dadka daga hiiraan iyo shabeellada dhexe ayakaa laga waayay fikir mideysan ee dowladda ula hoos tagaan. sidaas ogeed markuu khilaafaadkii batay, murankii batay, dowladda Soomaaliya uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha waxay go'aan ku gaartay waxa ay xal u aragto inay ku dhawaaqdo. guddi waxay ka dhawaajay 14 xubnood ka kooban. haddii adiga aad tashawaysid waa lagu talinayaa. dowladda Soomaaliya iyada mas'uulka ah gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe danaana ku qasabtay inay ku dhawaaqdo. mid haddaan ku darsado, waxaa laga dhawaajiyay gobolka hiiraan waa gobol fac weyn, population badan, kamid ah goboladii hore ee Soomaaliya 3 gobol oo ugu population ka badan, ugu dadka badan. annagoo taas gobolka hiiraan wuxuu ka kooban yahay 5 degmo oo xaqiiqa la inkiri karin. shabeellada dhexe wuxuu ka kooban yahay 4 degmo. dadka marka dego shabeellada dhexe iyo hiiraan adaa watay cawil gobolka shabeellada dhexe sidaan dareemayno waa 5 degmo sida ay ila tahay ama aan qiyaasayo. waa runtaa, laakiin sida Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii hore Soomaaliya Allah raxma Allah u naxariisto, dowladda markuu ka tagayay shabeellada dhexe waxay ka koobneed 4 degmo. waa Cadale, Aadan Yabaal iyo Balcad iyo Jowhar. waa wax la ogyahay. marka waxaan ula jeedaa dadka dega shabeellada dhexe iyo hiiraan ayaka inay isku noqdaan danta gobolka ama aayaha gobolkana ee go'aan ka soo saaraan. waxaan ognahay oo la xaqiiri karin oo xaqiiq ah, gobolka hiiraan ugu yaraan 7 bilood waxaa taal gogol loogu magac daray dib u heshiisiin iyo ay ka talinta gobolka hiiraan. gogoshaas muddo badan ay fidsan tahay. qabiilada dega gobolka hiiraan waxay ka kooban yihiin waa 5 qabiilo. waa 5 qabiilo ka kooban yihiin. qabiilo badan oo ku heshiiyay iyo qabiilo yar yar oo kamid ah oo hal tuulo 2 tuulo deganaan lagu xushmeeyay. qabiilo badan oo ku heshiiyay fikir mideysan ay ka soo saareen. marka waxaa laga rabaa hogaanka uu sareeyo gobolka hiiraan Cabdifataax iyo dhaqameedyada ka dhisan gobolka aan ognahay inay fadhiistaan go'aan cadna ay ka gaaraan, dowladda ay uga hoos tagaan.
saas markaas waxaa lagu heli karaa dowlad goboleed xalaal ah oo shacab ka soo bilaabatay dowladana ku dhamaato naasida وارن أحمد صاحبكن أول ما مغليسا مقدر يا مدة دارتي للبلد وينه waxa uu leeyahay waxay ahayd gudashaasi in reer Hiiraan ay ayahooda uga tashtaan laakiin ma moodaa gudashii balad weyn in ka badan 8 biloodtiin inaysan si waxaan rabaa laba maadaba inaad ii dul qaadatid inaan iftiimiyo horta saaxiibkay waxaan weydiinayaa arrintaad ka dhawaajisay ee 8 bilood iyo wax ka badan gogosha taalay go'aanaa ka soo baxay inta mas'uuliyadda iska leh ay ku lug lahaayeen waxaan ku khilaafsanahay awil gogoshii 8 bilood tilay go'aamaa ka soo baxay rabitaan reer Hiiraan ayay ahayd gogoshaasi xaggee ka baxday aaway wixii ka soo baxay waxa socdaasa maxay yihiin gudashu way taala soo awil sheegay maya gogoshan waa gogol labaad gogol tii labaad hadda loo balansan yahay 5 bisha soo socota ayaa loo balansan yahay reer Hiiraan ma doonayaan in lagu daro shabeellada dhexe sababta aanay u doonayna waxa ugu waaweyn reer Hiiraan qabaa'il badan ayaa Hiiraan degan qabaa'il yar iyo qabaa'il dhexe iyo qabaa'il waaweyn intaba way degan xuquuqda ay leeyihiin ayay weynayaan reer Hiiraan marka la kala bar xuquuqday leeyihiin waa weynayaan mana helayaan waxay ku weynayaan saalo badan la isku daray maxay ku weynayaan waxay ku weynayaan isku daray qabaa'il badan oo kasi badan la isku daray waana heshiis oo maamul ayaa loo dhisay ma jirto qabaa'il la isku daray ma jirto waxay ku weynayaan majority minority ku weynayaan hadda waqtiga hadda la joogo ma helaan xaq ay leeyihiin iyadoo Hiiraan hadda kaliya taagantahay ayaana helin qabaa'il kamida qabaa'ilka degan gobolka Hiiraan xaqooda ma helaan aad baa u mahadsantahay weli telefishinka oo ku soo noqonaya telefishinka Royal ayaa weli nagala socotaan daawadayaal stuudiyihiisa magaalada Zurich ee wadanka Switzerland barnaamijkii falanqaynta aayaha gobolka Hiiraan oo ay marti reer Hiiraan ah oo aqoon-yahan marti igu yihiin ayaanu ku guda jirnaa waxaan rajaynaynaa inuu qadka telefoonka ku soo biiro intaan barnaamijka wadna injineer Cabdulcasiis Axmed Cabdulle oo kamid ah waxgaradka reer Hiiraan ee degan magaalada Zurich ee wadanka Switzerland waa ku imaanaya Cabdirasaaq Xumaan Loobin awil nuur waa maqlaysaa saaxiibkeen Axmed Maxmed Tifow Axmed daahir waxa uu leeyahay reer Hiiraan iyo shabeellada dhexe hadii la isku daro dad badan ayaa xaqooda la duudsiinaya marka warantaa bismillaahir rahmaanir rahiim Axmed aad u mahadsan yahay su'aasha uu qabo oo uu soo celiyay waa runtiis waana fikirkiisa soo dhaweynaya waxa xaqiiq ah oo aan ognahay sida isaga uu ka dhawaajiyay inay gogol taal gobolka Hiiraan muddo 7 bilood ka badan go'aamana ka soo baxay go'aamakaasna waa go'aaman ay u dhamaayeen reer Hiiraan go'aamakaas ayaa kala rabaa inay dardar geliyaan dawladana hoos tagaan laakiin reer Hiiraan hadii ayaka ay kala socdaan oo xafiisyada ay u kala dhuumanayaan oo kala fikir ay yihiin badankood ragga mas'uuliyiinta oo dawlad u shaqeeyo ama xamar mas'uuliyiinta fadhiyo oo dawladii hore ku jiri jiray hadii ay kala fikir yihiin iyo gobolka dawladda waxay sameynaysaa ama tilaabta waxay qaadaysaa qaabkay u aragta xal anigu ma qabasteydaba in maanta laga hadlo gobol lagu daro laakiin waxaan u taaganahay marka ugu horeysa inaan xuquuqdeena helno reer Hiiraan hadii aan nahayna waxaan ku heshiino oo cad anagoo gacmaha is haysano marka ummadii kale aan wax ku darsanayn ama saas way macnaha federaal marka laga hadlayo laakiin federaalkii waxaad moodaa Soomaaliya maanta ka jira in shaatigii la bedelay laakiin federaalkii magacii la wato systemkiina laano waa tahay daawadayaal sidaanu idin ballan qaadnaba qadka telefoonka waxaa ku jiro injineer Cabdulcasiis Axmed Cabdulle oo kamid ah aqoon-yahan reer Hiiraan isla markaana degan magaalada Zurich ee wadanka Switzerland sidoo kale daawadayaal injineerku waxa uu isku soo taagay jagada gudoomiyenimo ee gobolka Hiiraan waa xog ogaal wax badan u og arrinka aanu maanta falanqeynayno hadii aad maqasho injineer Cabdulcasiis Axmed Cabdulle waxaan jeclahay inaad ku soo dhawaato TV-ga caalamiga Royal barnaamijkiisa codka jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland oo ay marti igu yihiin jaaliyadda gobolka Hiiraan
وعليكم السلام ورحمة الله أنا وجعل إن عدك يرى سراء قادو وحنا ما أنت برنامج كنا كفران غيرنا أمورها قبل كهيران كارهان أرنكا إسكودرك لبض قبل هيران إيه شبه لذا دحى ودولة الصومالية كله واقعي سيدو كله واحد جري جودي دولة وأي مقعودة أو أرنكا سنانكي سلا سعوني أو هناك لو معمولي دليلين لبض قبل غيبة كم إذا كوسو دو مركله سيدو أركتا آية قبل كهيران كإنجنيرها واتا إنجنير عاد بدو ما هتسنتهاي واحد جعل هنا كويدي هذا سوق وبيو مرك هذا الكاغو وحا أو دقميا إن واحد إن كفر أحسن تهاي أما التاجر أحسن تهاي إن قبل كهيران هي شبه لذا دحائي ميدوبان إسلام مرك أنا هالكا لقى يقلله معمول قبلات ودقمو سيدا دولة دحائي ودو معمول قبلات يدي هرا الله يقلله واتاي waxaan jeclahay engineer inaan ku joojiyo studio waxa ay wala sugan marti oo ay kamid yihiin Ahmed Mohamed Tifow oo ka soo horjeeda fikirka aad qabto Ahmed waxaan jeclahay inaan qadka telefoonka inoogu jirto si aan su'aal kale ku weydiino hadii aan u baahno engineer aad baad u mahadsantahay Ahmed Mohamed Tifow waa maqlaysaa engineer Ahmed Abdulaziz Ahmed Abdulle oo xog ogaal ah in badan jagada gudoomiyenimo ee gobolka Hiiraan hore isugu soo sharaxay waxa uu taageeray in labada gobol midowga faa'iido badan ay ku jirto sidoo kalena gaashaanka ayuu ku dhuftay fikirkaaga ah Hiiraan inay gooni isku taagto bal ka waran arrinka maxaad uga jawaabaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa salaamaya saaxiibkay Abdulaziz Ahmed Abdulle laakiin fikirkiisa waa fikir aan ka soo horjeedo gobolka Hiiraan waxa dega qabaa'il badan federaal annaga kaasa noogu filan uma baahnin mug annaga naga weyn ama mug yaani culeys annaga naga badan inaan dhaxda ka galno Hiiraan uma baahno laakiin waajibaadka waxa kamid ah Ahmed laba gobol iyo wax ka badan Hiiraan kaligeed sidee suurtagelaysaa Hiiraan waxay noqon kartaa baaxadna u leedahay muggeedna ay tahay laba gobol engineer waxaan rajaynayaa inaad qadka telefoonka ku jirto su'aalo ayaan ku weydiin doonaa sidoo kale martida waxa kamid ah Cabdirasaaq waa maqlaysaa saaxiibadan waxa isku turtuurayaan adiga dhinacaaga ka waran waa runtii
aad baan u faraxsanahay maanta fursadan anigu fikirkaygu waa cad yahay dadka Soomaaliyeed ama gobolada Soomaaliyeed dadna inay baaba'een dadna ay tarmeen waa waxaan dhici karin in arrintan la weydiin tusaale markaan usoo qaato maamul goboleedka ugu horreeyay Soomaaliya laga yeelay waa Puntland waxay ka askuman tahay hadda ay ku fadhiso gobolkii bari la oran jiray oo nugaal loo qaybiyay iyo bari Hiiraan iyo markaas Puntland isku xildhibaan 12 xildhibaan ayaa ka soo galaysa gobolka Hiiraan 1960 oo 120 ka kooban waxaan rabaa marka bulshadan reer Hiiraan maxaa u diiday waxa ay isagu samaystaan inay haddii la doonayo waa federaal iyo nabad iyo in hore loo talaabsado marka waxa weeye anigu waxa Soomaali ay ku heshiisay oo hadda loo dhayahay ma jirto waad la socotaa dastuurkan qabyo qoraal waa qabyo waxa kaliya anigu aan aaminsanahay in Hiiraan ku darista lagu darayo gobol kale ama oo guridiisa u istaagayo inay ka go'do dadka reer Hiiraan oo aan wali fursad loo siin in ay iyagu ayahooda ka tashtaan oo ay wada fariistaan waxaan qabaa in fursadu wali way taagan tahay fursad la siiyo dadka reer Hiiraan loo ogolaado inay ayahooda iyagu ay ka tashtaan haddii kalento oo sidan anigu waxaan u arkaa in afgambi ay Cawil Nuur Cumar waxa uu ka mid yahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Zurich waxa uu aaminsan yahay fikirka injineerka Cawil waa maqlaysaa saaxiibadan sidoo kale injineer Cabdicasiis waxa uu raacsan yahay fikirkaaga waxaana leeyahay dantu waxay ku jirtaa midowga labada gobol halka saaxiibadan kale ay leeyihiin Hiiraan inay isku tashato isla markaana ay ayaheeda ka tashato ayay xaq u leedahay adigu maxaad is leedahay muhiimad ayaa ku jirta Hiiraan inay shabeellada dhaxal raacdo maxaad is leedahay adigu arrinka ayaa muhiim u ah cawilahaan waa mahadsan tahay Cabdirashiid horta aad waxaan u salaamayaa injineer Cabdicasiis wixii aan dhihi lahaa ama haro aan u dhahanay isaga ka dhawaajiyay ani ahaan fikirka aan qabo waa fikirka uu Cabdicasiis injineerka uu ka dhawaajiyay oo ah shabeellada dhexe iyo Hiiraan in la isku daro waa dad isku ehel ah waa dad wada dhashay waa laba gobol oo mudan in la isku daro waxa la rabaa marka bulshada ama qabiilada ka soo jeeda gobolka Hiiraan inay laba kala qaadaan maanta wadankii Soomaaliya ama dawladda federaalka waxay u socotaa federaal waa inay ku fikiraan reer Hiiraan qaabka kaliya ugu fudud ay ku heli karaan ka waran daqare dhinacaaga waxaan aragnaa saaxiibadana inta badan way ku kala fikir duwan yihiin adiga dhinacaaga maxaad is leedahay halka uu ku jiraa wallahi horta waan salaamayaa injineerka iyo bahda saxaafadda intaba anigu waan taageersanahay gobolka Hiiraan in isku lagu daro shabeellada dhexe laakiin isbedel ma imaanayo in laga sugo hawshaas gacan kale ama gobol kale in laga sugo hawshaas isbedel waa kuma imaanayo wuxuu isbedelku haddaad rabtid inaad isbedel keentid waa inaad diyaar u ahaataa inaysan waxba hoos ku dhigaynin ilaa intaad ka mara dhalinayso gobolka Hiiraan reer Hiiraan waxaa la rabaa inay isku tashtaan oo ay arrimahooda si xasaasi ah ay uga mara dhaliyaan oo gogashii wali way fidsan tahay inta dhiman lagu dhameystiro kadibna wax cad oo dawladda lagula gorgortami karo haddii shabeellaha dhexe lagu darsanayo iyo haddii gobolka Hiiraan oo gaabadii barnaamijkeena ayaanu soo gaarnay daawadayaal wali waxaad nagala socotaan telefishinka caalamiga Royal Studios magaalada Zurich ee wadanka Switzerland codka jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland oo ay marti igu yihiin jaaliyadda reer Hiiraan barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo Cabdirashiid Guure Cabdicajiib ah waa gabagabadii barnaamijkeena Cabdirasaaq Cali Faarax ayaan jeclahay inaan weydiiyo waxa uu ku darayo runtii arrintan wax badan baa laga hadlay annagu mowqifkeenu waa cad yahay haddii aan reer Hiiraan nahay dawladda wax laga sugayana wado qaldan ayay ka martay waana saxaynaa haddii ay nagala tashaan maxaad is leedahay waa dawladda lagu sixi karaa waa laga yaabaa dawladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha qaybo ka mid ah inay ka daawanayaan telefishinka Royal maxaad is leedahay xalku ku jira oo aad ku saxaysaa dawladda ka cadaysaa waxaan ku saxayaa waxay tahay waxa weeye arrintu in loo abaaro sida ay tahay lagana talageliyo dadka waxgalka u ahal ah nabadda
u ahl ah wada noolaanshaha haddii bulshada qaybeeda kala duwan sida odayaasha dhaqanka hogaasyada malaaqyada duubabka salaadiinta aqoon-yahanka in laga talageliyo dadka waxgalka qurbo joogta xitaa ay ka mid tahay taas waxa weeye markaa fikir midaysan ummadaasi markay u fariistaan waxay ogaanayaan in ay ka talintii ay leeyihiin iyagu lagala maartay aad baa umahadsan tahay ugu dambeyntii fikirkaaga ku aadan sidaan ognahay gudoomiyaha gobolka hiiraan waxa uu jooga magaalada muqdisho in badan oo kamid ah warbaahinta Soomaalidu waxay sheegayaan in su'aalo laga weydiinayo dil la sheegay inuu ku lug lahaay walow aanan cadeyn karin oo iska bariyaray gudoomiyuhu oo su'aalo laga weydiinayo isla markaana wax looga yeeray magaalada muqdisho cabdirasaaq ahaan maxaad isleedahay arrinkaas uu ku saxnaa in gudoomiyaha gobolka xamar su'aalo lagu weydiiyo arrinkaas ma xagaaga maxaad isleedahay runtii arrintaas waa arrin aad u qaldan meelna looga dhacay nidaamka dowladnimada waana tan aqoon darida ka haysata nimankan dowladda sheeganaya in ay maamul gaarsiiyaan gobernatoraha gobolka hiiraan wuxuu matalaa waa presidentaha oo kalenta calankiisa ma dhaafi kartid dad magaalada beledweyne tagta gaarigiisa socdo taa waxa weeye ixtiraam uu ku leeyahay bulshada wuxuuna ummadaas 2 milyan ayuu mas-uul ka yahay waxay ahayd inuu badbaadiyo oo wax u qabto dil baa lagu eedeeyay taa arrintaas anigu kabsalamiinta adduunka meel ay ka jirta aad ma jirto qofka xil haya anigu dowlad baan kasoo shaqeeyay qaran dhisan qofka xil haya ee mas-uul gobernatore heerkaasa tuhun iyo su-aal baan weydiinaya loogama imaan karo waxaa iga sii daran ciidamo amisom laleeyahay oo cadowgii Soomaali kuwa kale yimid oo meesha ayaa su-aala weydiinaya baa sidee gobernatore gobol ee calankii Soomaaliyeed ee shaqo xidig lahaa wata 2 milyan ummad matalay sidee amisom ciidamo ka socdo su-aal u weydiiyo taan qabo sidee xamar lagu keenay oo loo qarinaya ilaa ay hadda isaga idaacadaha kale waxay ahaday dawladdu qofku qalad waa geli kara marka ugu horeyso dilkii walaalkeen waa ka tacsiideeyeen oo naxariista jannada ka waraabay gacanka kala daran baa dishay rabshado badan baa dhacay taa waxaan rabaa in loo daayo cadaalad baa ku maqan cidii ay ku cadaatana reerkigan ayagu kala daran ma taageeraan cidii ay ku cadaato dilkaas iyada cabdishiid waa maasan tahay waxaan rabaa qodobkan intaan ka bixin labo qodob inaan raacsado qodobka ugu horeeya horta gudoomiyaha gobolka Cabdifatax waa mas'uulka ugu sareeya gobolka Hiiraan waxaa looga fadhiyaa oo looga baahan yahay gobolka Hiiraan inuu gaarsiiyo gobolada la midka sida Koonfur Galbeed Jubbaland Puntland Somaliland meesha ay gaareen inuu gobolka gaarsiiyo isagoo la kaashanayo waxgalka gobolka Hiiraan oo dhaqameedka ka dhisan aqoon-yahanada markastana tilaabta uu qaadayo oo kala tashto ragga waaye aragnimada dheer u leh dowladnimada markaas waxaan aaminsanahay reer Hiiraan meesha ay mudan yihiin iyo waxa ay rabaan inay gaari karaan marka Cabdifatax ugu baaqi lahaa inuu gobolka dib u dhaca uu ka wado uu ka daayo uu hore u wado qodobka labaad arrintan hadda aad soo qaateen oo ah walaalkeen Mahdi alle rahma ehelkii iyo qaraabadii uu ka dhintan Ilaahay sabr iyo iimaan Allah ka siiyo runtii aad inoo taabatay haddaan nahay jaaliyada gobolka Hiiraan ee qurbo joogta waa ka xumaanay Ilaahna jannada ka waraabiyo runtii arrintaas markay dhacday waxaan ognahay oo la xaqiri karin in mudaharaad iyo arrimo badan ay ka dhaceen oo loo sigtay in dadka deegaanka dad wada dhashay inay iskula tagaan gacan u dhigna meeshaas ku daato arrinkaas runtii waxaan ku amaanayaa kaalin weynna ka qaatay muddo dheerna soo jireenna uu ka qaadi jiray ugaaskeena ugaas Cabdiraxmaan Ilaahay ha xifdiyo arrinkaas ama dagaalkii ama dhiigii daada rabana isaga uu hor istaagay isagoo la kaashanayo oday dhaqameedyada oo gobolka Hiiraan marka insha Allah taala ugaaskeena waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aad u maasan tahay kaalintii lagu yaqaanay oo wiliga ka qaadatay waxaan ugu baaqayaa ugaaskeena inuu hore u soo socdo u sii socdo insha Allah taala waa maasan tahay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un waxaan tacsiiraan yeelay halkan uga gudbinayaa eheladii iyo qaraabadii uu ku geeriyooday ninka la yiraahdo Mahdi Xuseen Sheekhaan sarkaalkaas Allah u naxariisto gacan ka gardaamaad
dishay waxaan leeyahay ummadda reer hiiraan waddada aad ku socotaan waddo soo dhow ma aha qaabka aad u fikiraysaanna waa qaab qaldan haddaad madax tihiin iyo haddaad tihiin aqoon-yahan aad tihiin iyo haddaad shacab tihiinba wax suuragala maahan wax dhici kara maaha wax la qaadan kara ma aha aqoon-yahankiina magaalada bartankeeda in lagu dilo wax dhici kara maaha waxaan leeyahay aan ka codsanayaa haddayba jirto xukuumad cadaalad fulin karta in cadaaladda la mariyo ciddii ka dambeysay waxaan leeyahay dadka reer hiiraan tanta ka dambeysa ka fiirsada ninka aad meesha geysanaysaan ka fiirsada intaasaan kusoo koobayaa ra'yigayga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsan tahay guud ahaan daawadayaal barnaamijkii gaarka ah ee idinkaga imaanayay stuudiyaha telefishinka royal ee magaalada zurich ee wadanka Switzerland barnaamijka waxaa maanta marti iigu ahay jaaliyada reer hiiraan ee kasoo jeeda gobolka hiiraan waxaa sidoo kale barnaamijkan oo kamid ahay barnaamijka codka Soomaalida wadanka Switzerland oo ay marti iigu ahayeen jaaliyada reer hiiraan haddaba daawadayaal barnaamijkaas waxaa marti iigu ahay mas'uuliyiin uu kamid yahay Cabdirasaaq Cali Faarax oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed isla markaana uu kasoo shaqeeyay wadamo kala duwan sidoo kale Axmed Maxamed Tifow oo ah oday Soomaaliyeed oo waxgarada isla markaana wax badan goobjoog u ahay Awil Nuur Cariif waa gudoomiye mid kamid ah mas'uuliyiinta ugu sarreeyay jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka sidoo kale waxaa barnaamijka marti iigu ahay Axmed Maxamed Cabdi oo loo yaqaan Daqare wax badan u soo joogay isla markaana ah aqoon-yahan degan gobolka Zurich isla markaana kasoo jeeda gobolka Hiiraan barnaamijka waxaa qadka telefoonka uga qayb qaatay daawadayaal injineer Cabdulcasiis Axmed Cabdulle oo isagu ah aqoon-yahan reer Hiiraan isla markaana isku soo taagay jagada gudoomiyenimo ee gobolka Hiiraan Cabdulcasiis Axmed Cabdulle ayaa qadka telefoonka uga qayb qaatay barnaamijka guud ahaan barnaamijka waxaa idila socodsiinayay anigoo Cabdirashiid Guure Cabdicajiib barnaamij noocan oo kale intaanu dib dambe ugu kulmi doono waa bahda telefishinka Royal ee wadanka Switzerland oo idiga tagaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh